waxaan idin ku codsanayaa maanta maadaamay dhimatay 100 in ka badan inaad 5 minit aamustaan saqarinaanay bixin faatixadana u martaan kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal meel kasta dunida ka joogtaan ku soo dhawaada janaalkeena kashka official daawadayaal horta sikadiisa ayaan hadda ugu soo laabanay waxaana baajinay barankii aan soo gelin lahayn hadda janaalkan YouTube ku leenahay kashka official waxaanan nooga qiimo badnaatay inaan murugada iyo tacsida la wadaagno walaalaheena Soomaaliyeed waalidiinteena iyo dhammaan dadkii qaruxa ku waxyeeloobay waxaan marka hore leenahay intii dhaawacmatay ilaahay ha u boogadhayo intii dhimatay ilaahay jannada firdawso ha ka waraabiyo mid kale oo rabay inaan ka hadlo daawadayaal waxa waaye horta ma jecel inaan siyaasadda aan dhex galo ma jecel inaan siyaasad ka hadlo ma jecel inaan dhex jibaaxo arrimaha siyaasadda balse sababo jira awgood lama hadlaayo dad siyaasadda xilweyn ka haya ama siyaasadda ku jira ama siyaasadda ku howlan laakiin waxa la hadlayaa dhalinyarta afka Soomaaliga ku hadasha waxaan leeyahay wadanka waa wadankeeni waxa fiicnaan lahayd maanta inaad fikirkiina mideysaan oo dad walaalo noqotaan hadalkan hadda hadlayna kuma jeedinayo dad khaas ah waxa laga yaabaa inaad taageerayaal badan ku waayo intaan hal dhinac u jeero laakiin waxaana deeqa haddana nahay dhalinyarta Soomaaliyeed waa Soomaalinimo mudooyin ku dambeysay waxa jiray fanaan la wareejinayo baraha bulshada oo dhahay xamar dibkeena waa farxadeena laakiin mid kaliya oo hadda la dareemi karo waxa waaye xamar inay tahay hooyadii Soomaalida xamar inay tahay hooyadii Soomaalida hooyo qof ka qaalisan ma jiro dunidan waxaana ogaataan xamar inay tahay hooyadii Soomaalida ani xamar ma arkin warka hadda soo tabinaya balse markaan maqlo qarax ayaa xamar ka dhacay waxa ay duwaxshi jirka waxa dareenaa damqasho waxaana ka naxaa dadka walaalaha meeshaas waxyeelada ku soo gaartay ka soo baxaya weerar ismiidaamin ahaa oo subaxnimadii hore ee saakay lagu qaaday bar control oo ciidamada waaxda canshuurta ay ku lahaayeen isgoyska X control afgooye ee magaalada Muqdisho ما شاء الله ninkan waan salaamayaa maanta waxa dhacday taasi walaalaheena meel kasta joogaan duceynaa amiin waxa walaalayaal Soomaali baan nahay anigu Soomaali baan nahay waxa waan jecelahay sawirada shacabka masxalad leeyahay ano weli gaban yaro gugaygu cantooba joogo garkayguna xaad lahay anoon guntiyeelan weli iyo haddow guudkuy caddaaday dhaciyo guluf aan damayn galayuus baan ku korayo habeen labadiisa gelin digiya qarax baan maqlaayo dhaguhu ila guuxayaan hurdada kami waaye jiifka hadduu galow meelka yeedho dhulkay la gariirayo gawdu ihayaa wadnuhu waxaan galabsaday dadu waxay iga goynayaan anigu weli taa ma garan habeen labadiisa gelin gigiya qarax baan maqlaayo dhaguhu ila guuxayaan hurdada kami waaye jiifka hadduu galow meelka yeedho dhulkay la gariirayo gawdu ihayaa wadnuhu waxaan galabsaday dadu waxay iga goynayaan anigu weli taa ma garan marka haddii aan nahay dhalinyarta Soomaaliyeed annaga maxaa noo dana maanta waxaa jirnaa 30 20 25 40 ilaa 45 ilaa 18 15
maxaan ku soo kornay maxaan dhib soo aragnay waxaa loo baahan yahay inaan isbedelno waxaa loo baahan yahay inuu qalbigeenu mid noqdo waxaa loo baahan yahay in aan ra'yigeena iyo fikirkeena mideyno si aan dunida ula jaan qaadno ma jiro waddan ay dhalinyartiisu dhisin guriga markii la dhisaayo waxaa laga soo bilaabaa hoos ee korma laga bilaabo haddaan nahay dhalinyartii iyo ubaxii waddankan ma ahan maanta maalintii aan baraha bulshada iskaga soo gudbin lahayn hadallo xanaf leh laakiinse waxaa loo baahan yahay in anaga waddankeena mid u noqono in anaga ka fikirno xaalku meeshuu maraayo ma jiro maanta nin dhalinyara oo waddankiisa la rabo xumaan wuxuu og yahay ilmuhu dhabar ku sido inuu bari mustaqbal wanaagsan u helo waxaan laga codsanayaa dhalinyarta Soomaaliyeed meel kastay dunida ka joogaan inay isku duubmaan qabiil hadduu faa'iido leeyahay hadduu qabiil faa'iido leeyahay 35 sano 40 sano ayaa wax lagu keeni lahaa hadda xaalku wuxuu marayaa maxaa noo xal ah masaanan ku jireena masaanan ahaan doonaa mustaqbalkeena xagee ku dameenayaa waa su'aal isweydiin mudan waxaa loo baahan yahay inaan ku cibro qaadano waqtigii naga lumay waqtigan waa seef wuu dhamaadaa wuu lumaa waana la dhimanayaa waxaa loo baahan yahay inaan ku xisaabtano teemka lumaya wiilka ku dhashay maanta duni kale ama waddan horumarsan wuxuu ku fikiraa halka daqiiqo oo ka lumaya inuu faa'iido ku helo anagana maxaa ku fikiraynaa fidku dirir iyo inaan meel shax ku cabno oo dad leh aan wax ka sheegano taasna ma ahan mid noo fiican waxaan hadda hadalka aan ku hadlayo ma ahan hadal aan qofin aan kula hadlayo laakiin waa hadal dhalinyarnimo waxaana dareemi karaa qofka marxaladda maanta aan maraya qiirada hadalka ii keenaysa ma ahan qiiro maanta kaliya ku kooban ma ahan qiiro aan muuqaalkan ku soo koobayo waa qiiro aan ka sheekeyn doono marka ciyaal dhalo waxaa loo baahan yahay inuu fikirkeena samaado qalbigeena mid noqdo aan u fikirno sida waddankan horumar u gaarsiin lahayn aan ku fikirno inaan dal shisheeye ka soo tagno oo waddankeena horumarsano ma jiro maanta waddan aysan dhalinyartoodu dhisin waxaa loo baahan yahay waddankeena inaan u soo noqono waddankeena in ilaahay dhibta nooga qaado maanta dhibta ilaaha noo keenay ilaahana naga qaadi karaa balse anaga maxaana la faray waa dadaal oo kaliya haddaad dadaalno maxaa fiicnaanaya wixii aan rabnay inay fiicnaadaan ayaa noo fiicnaanaya isku daya walaal inaad hadalkayga maqashaan in fariinta yartaana waxaa u soo diray dhammaan bulshooyinka Soomaaliyeed dhammaan bulshooyinka afka Soomaaliya ku hadasha in makhaldamo waa ilaahay haddii macnaha hadal khalada macnaha iga faantay waa iga raali ahaanaysaa maraba maanta inaa cid gacanta ku fiiqo balse waxaan sheegayaa xaqiiqada meesha ka jirta iyo sunta meesha ka qoyan tahay waxaana jeclaan lahaa fariintan inaad sheergaraysaan qof kastoo fariinteeda daawada ilaahay baan kugu dhaarshaye adigoona sheergarayna ka bixin muuqaalkan ilaahay baa kugu dhaarshaye gaarsii meel kasta haba u yaraatee WhatsApp status gaarsii saafilayo ma iidan iga baran inaan soo bandhigo arrimahan oo kale balse qiiro jirkayga ku jirta ayaan la joogi waaye oo sidaas u soo gudbiyay walaal ilaah baa kugu dhaarshaye sheergaray oo asxaabtaada dhan u dir xataa WhatsApp status dhig meel kasta dhig fariintan walaal ha ka tagin muuqaalkan adoo sheergareen ilaahay baan kugu dhaafin ilaahay Soomaaliya dhibta ka qaado ilaahay Soomaaliya dhibta ka qaado والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته anoo weli gaban yaro gugaygu cantooba joogo garkayguna xaad lahay anoon guntiyeelan weli iyo haddow guudkuy caddaaday dhaciyo guluf aan damayn gala
baan ku korayo habeen labadiisa gelin digiya qarax baan maqlaayo dhaguhu ila guuxayaan hurdada kami waaye jiifka hadduu galow meelka yeedho dhulkay la gariirayo gawdu ihayaa wadnuhu waxaan galabsaday dadu waxay iga goynayaan anigu weli taa ma garan